Soomaaliye annaga nala ku dilay hooyaa lagu agoontinayna dalka lagu xaalufinayo oo lagu baabi'inayo hubka inta la eg iyo in kale idinka qarsoon oo jirta yaa loo waday Soomaali baa loo waday shabaabna waa loo waday hubka shabaab baa iska lahaa shabaab baa soo iibiyay loo soo iibiyay hay yaa lagu dilayay dawladnimada ninkii wadaniyad inta in la eg laga dheexdo inta in la eg ninkii wadaniyad laga dheexdo waa maqnaa doobirkaas baa ku dhigay dhab qabaa'ilada Soomaaliyeed ee galmudug wada deganna waa lagu foorarinay koonfur galbeed waa loo cil qabay waa ku jirtay walow ay niman badan oo ayaga ah ay hubkaani wax ku lahaayeen laakiin ilaahay intuu aadana tashanayna ilaahayna tiisa meel bay u taallaa rabbiga qaalku raxmaanka anaga waxba ma ogin bari iyo saadan baan ku xisaabtamayna laakiin allah qaalku raxmaanka ee waxba aan ka daahnayn asaguna waxba uu eegayaa waa la isku wada maqay nin waa tashanaya ninna waa dhimanaya god buu u hooyanaya waxaan isweydiiyay marka Soomaaliye hubka waxa la yiri Ethiopia laga keenay Ethiopia sootina laha ma bad bay xoog nooga qaadanaysaa oo la dagaalsanayn ya Ethiopia sootii aan laha bad bay qaadanaysaa oo dagaal xoog laha noo dhaxeeya ko hubka inta la eg warqad dawladeed baa lagu soo qaaday saxiix madaxweyne iyo calanka Soomaaliyeed baa lagu soo qaaday laguma keenin hubkaani tuuganimo iyo baalkii laguma keenin hub sharciyeysan oo dawlad lagu soo qaado aha Soomaaliya dhanna waa lagu baabi'inay shabaabna waa loo waday okay dal shabaab marka dal shabaab oo xukuumadiisu ay shabaab tahay seen anaga ku aamini karnaa marka idinka idin dhibay seen lagu aamini karaa hubkaan aragteen oo cadadkaan aragteen leh oo caawa intuu faalalay shacab masaakiin inta gacantooda la keenay ayagana khayr Allah siiyo intay qabteen oo soo qabteen intuu aadi lahaa umad shabaab uu aadi lahaa iyagoo gacantooda ayagu ku jiraan anigu door biday wallahi oo billahi waan aan ku farxay markay qabteen ilaah waa ka iiga sareey because annaga isku dhamayla ayaga lagu dili lahaa kuwa kale lagu dili lahaa Soomaaliya lagu dili lahaa dadka dhan baa lagu dili lahaa annagoo dhan baa nala wada baabi'ila soo ma moodid inaan tareen faaruq aan saaranahay xasan markaan idin iri iyo kuwa la shaqeeyo waa shabaab kuwa baarlamaanka ku jira wada shabaab gabigood say wada dhiyina wada shabaab siyaasi caawa aan dhig kala kaasa dadnimo ugu lan wallahi inuu ku jirin warubkaad aragtay aan ku faaruqinayn wadankeena soddon iyo intaas oo sano buu dawlad la'aan uu yahay oo aan wada taagtaagana meel aan wada taagtaagan hay inaan harsano inaan hooyana waa la diiday waa la isdilayaa maalin walba laba qabiil baa la isku soofaynaya hay lama kala celinayo hadda waxaan arkay niman helicopter sii saaran oo sii aadaya shalay qabaa'ilaa isdilayay war mareexaan iyo qayb sura kamid ah shalay waa isdilayeen war leel kasa iyo sacado reer abtigay iyo ayaguna waa iswada dilayeen war mareexaanka qaarkiis iyo habargidirta qaarkeed way isdilayeen war intaas soo dada baa gadaal laga basbaasayna nin siyaasi oo inta soo baxay yiri dadkan aan kala celina ma aragteen adigu laakiin hubka baabuurta ee samsaturada leh iyo adduunyada BKM-yada leh waana loo soo raraya iyo bambooyinka saan huf u noqono iyo halaan jirna xageena loo wadaa marka Soomaaliyeed xageena loo wadaa hubkan dawladda waa weyn baa ku jiro og xageena loo wadaa xagee ku soconaa marka xageen aadaynaa taladeenu waa xagee haddaad hadashid waxaad u leeyahay hebel baad nacabtaa war hebel nacayb iyo jacayl midna waxba kuma siinay kan anigu dhalaan nacayb iyo jacayl midna aan waxba ku siinay dalkaan xagee loo wadaa adikaan idin dhibay dalkaan xagee loo wadaa marka shalay Abay Axmed aan ku dhaganay hay saaka hubkaani hadduu Abay Axmed xataa uu ka soo gudbayo niman Soomaaliyeed oo magac Soomaali kula laakiin inside ka Soomaali aan ka inbaab kala Soomaali Nabi Maxamed dir iyo daarood iyo raxweyn iyo beelaha dhexe markii laga saaro shanta qabiil anigu inta hubka waxbay kula hay xaqiya lagu dilay marka hubka yaa ku baabi'inayna hubka hay dawladnimada hal si ninkii dawladda hayay ee dawladnimadii asaga inta loo dhibay dadka maamul haddii mid dhiiqa dhex jiifo uu yahay haddii mid badaha quushubaya uu yahay haddii mid cararayo uu yahay haddii ciidanka la baabi'inayo haddii dalkii aan loo naxayne saakana in taray baabuurtaad aragteen waaweyn candamaydlayaasha inta la soo raray dalka lagu dhex furay ya ilma adeerayaal nin gurigiisii ka nixi waay nin kale ma u naxaya adikaan idin dhibay shalay abee waa tii la lahaa badu rabaa
nalku cabsiinaya abay oo aan idin war abay waxaba idin kama rabe ka fariista wadan hay war kuraastan beelaha caalamka kula haynaan la Allah in aan aadnana noo diiday aawa dawladnimadu aawa haykalka dawladeed ee umada la wadalaya aawa waxaan u malaynayaa hooya habeen 9 saac habeenimo 10 saac habeenimo cagaf la geliyay oo ilaahay baryayso layd bajiyaan gadaa habar yartay aniga ahayd oo layd wa alaykum asalaam wa rahma lahayd bajiyaan gadayay ilaahay oo adaan ashkata kuguna ilaahay iyo kuwa kale oo qarsoon inuu ilaahay ducadoodii banaanka soo dhigaa ii muuqata aniga wallahi maalintii dhawad markaan arka mar waa yaaba 5 farood iyo daab baan isku dhajiyay waa fiiriye naam waxaana huba aniga nala ku foorarinay mar waan farxa markay reer abud waaq intay ku diideen ay gacanta soo qabteen hubkan nisa maxaa u geeyay hadaysan dawladda Soomaaliya islaam hadaysan lahayn maxaa u geeyay xasan doorasho inuu dhigamo u sarribin hubkaana qofkii diidi lahaa iyo qofkii ku qanci lahaa wallahi baan ku dhaartay shabaab baa loo waday gudoomiyaha baarlamaanka xataa waxba ku leeyahay hubkaani shabaab baana la geeyay qof walbana waxa la rabaa shamshuutarkaas dhab in lagu siiyo ma wadan iyo ka hadlaha ku dhaji dhag hay dalka miyaanan anagu lahayn marka galmudug intaasuu qoorqoor uu ku dhex jiray uu marna xagga u cararayay qofka walaalka alimintiisa aan sheegina beenaale weeye qoorqoor intaasuu ordayay wa alaykum asalaam wa rahma soo dhawaad qoorqoor intaasuu ordayay uu galmudug qabiilada isku keenay wali nin siyaasi inta soo garab fariistay ma aragteen wax la raadinayo oo garabkiisa taagan ma aragteen ma jirin asaga lagu xubaynay hay saaka hubba la keenay hubba wadankii oo dhan xarqiyay okay kuwa boodbooday waxay leeyihiin galmudug waa in laga qaado galmudug ma meel hal qoys leedahay hal jifaleeda hayba mase waa meel umad dhan intay wada degantahay ay shala ku wada heshiiyeen ba adikaan idin dhiba Soomaaliya haddii ninkii u roona ee la lahaa ninkaana ninkii ugu roona haddii saaka inta la cayrsada la leeyahay war kali annaga nama matala la leeyahay oo hubka nisa iyo sambalolsha iyo ay wada dooreen oo la wada ogyo ciidanka loo diray ciidanka markuu baalu ahaa suu ku soo ilaa hubka Itoobiya uu ku soo walwaalay hay war haddii la yiri maxay ay toonay hubki keena hubka umada lagu dilayo umadu ay qabsadeen baa la keeni kara saaka maxaa galmudug u da'ay maxaa u da'ay saaka galmudug adikaan idin dhibay kuwa sii ordayo maxaa da'ay inay umada baarlamaanka iyo halka cunaa intay ku dhagaan ay u fariistaan ma ahane ma wax kala meeshan yaala gormee waalanay gormee safayowna war dadkan kulligood wixii hubkaan keenay maxkamad aan ku oogno oo aan geyno maxkamad aan geyno dalka ciidankiisi waa baaba'ay dalka dadkiisi waa annaga weeye annagina wixii waa aan u jeednaa subax saakayo shacabka soo baxay ee toona cabud waa hubkii ay dhigaan baa la soo aro ma la aruuri kara hub umada shacabka gacanta u galay adikaan idin dhiibay dagaal baa loogu tagaya reer islaameed baa waxa la rabaa mareexaan inta loo tago dagaal in loogu tago war sawma moodid inay dadkaan intay ayagi fashilmeen oo dawladnimadii ay ku fashilmeen haddana shacab masaakiin in loo ordayo war umada ilaahay ka fariista umada ilaahay fashil haduu oo jirana ilaa maxamed qaaliqaan ku dhaartay filadani ma ka fadhiyo waa wada fashilmeen gabigood macal baarlamaanka la leeyahay Soomaali ba iskale gabigood waa wada fashilmeen war intaasaa qabuuro la qoday baarlamaanka hadla ma aragtay war hooyooyin baa 10 saac habeenimo loo dhac baarlamaanka hadla ma aragtay war ciidankii baa la baabiya baarlamaanka hadla ma aragteen war hubba sala la keenay baarlamaanka hadlaya ma aragteen waa la wada yeeranaya waa la wada shiraya qabiil baa loo shiraya ciddaan hubka gacantooda ayagu gala cid ka qaadi kartana ma jirto caqli wa sharcina la dagaalamayo wallahi ana la jiro oo billahi ana la jiro mareexan because walaalka lagama gardarnaado umad Soomaaliyeed baa lagu foorarinay saakana ayaga qabtay asxaan iyo abaal baan ogayna intuu inta gacantooda ku soo galay ayagu ay gacanta ku dhigan abaal iyo barbaan wayna because waxayba noo ifiyeen hub maalin walba lala ordi lahaa oo dariiqa la soo marin lahaa bay subaxa saakaya indhaha noogu kala waxeeyaan ugaaska waa in lala shaqeeyaa wiilka ugaaska mareexaan waa in lala shaqeeyaa waa in galmudug aayaheeda iyo nidaamkeeda haddii la rabana meel la isugu wada yimaada waa in qabiiladan isdilayo waxaad isku dilaysaan ma jirto naar ma ogiyo waxaad isku dilaysaan wallahi inaysan jirin waa gabaahir ila bal galmudug maxaa yaala hal madaxtooyu qoorqoor ka dhisay waagi horena maba dhisnaynba waagi hore haddana halkii madaxtooyadii uu ka dhisay baa nimankoo dhan u wada ordaya waa la wada ooyayaa
qarsoon baa badan oo wallaahi ah nin walba waa ooyaya intaasoo kuloo lacaga igu jirtay maxaa lacagta loo gelinaya shacabka loo baabi'inaya maxaa loo baabi'inaya sala shacabka maxaa beenta loogu sheegayay meel walbaad ku shiraysaan meel walbaad aadeen hooyaydnan u naxayn aabbaydnan u naxayn dalka in la wada leeyahaydnan u naxayn calanka soomaaliyeed in la wada leeyahaydnan u naxaynidin saakana waxayba ku soo aruurtay catooshiro iyo dad masaakiina inta la xirxiro in la yidhahdo nidaamka adinka idin qaban waaye hubka keenay ee qabanaya wiilka yare catoosha ee maskiinka ah ee lacagta aad ka qaadateen sharciga qabanaya baa la yska rabaa dowladnimadii baad hayn weydeen war hubkaad aragtay yaan dilaynaa hubkaad aragteen markii la keenay yaa la dilayaa nin kastoo kaafi ka duwan xabadda ku dhaji sooma ah aawa nimankii talada dalka inta loo dhiibashada la aaminay aawe intay aadeen wax la xisaabtamaya male absino waa miran iyo odaga aadan garama meel kuu fadhiya iyo xasano wax walbaba labada dhagood inta ka furaysta isle tani dacway tagaysaa tan ma ujeedaan dacway tagaysaa cid islaameedna laguma duuli karo mareexaan laguma duuli karo lagumana duuli karo hubkaanna hub aad shala wadateen ood shabaab u wadeen bad ahayn shabaab baana gebigiin wadatihiin والله شباب بد ودتين أو بالله شباب بد ودتين وبكر ضد كم معمول قبل الديار اللي ربي إنه قلنا إلا قرعت بالربي إنه قصة أفشره هاي عاود الدولة دي ما ضمرك محق بدلان باللومة إلا قال كعية إلا يسكت له هاي تدكو إذا كما عقل يرى أوكي مركان قبل لبضة قبضات إسرائيل الشيء ولا علىها قال كعية وذا دكين الله يسكت له أو كده جسدي لوكيرو حدود بيناري لوكيرو أو إلا اللي هذا كان الجبا بقية محاكد أي سياسة عن إسكو جروين ضل كمعمول كيسة عن إسكو جروين إن ولا أنت تشضي بدل مرة يتشط ولا تشضي أو دكذا نبر كيسة كوقت أنت عادينه أو نمك الصومالية ضبك أي أنت كيران ما أنت لو وذا فنيو أنت اللي كيريو ما ضلك وذا قيسنا معمول مان إسكا وحقر صدرك يجا كل السنة مكان أنت المدافع إسكو جراء إن المدافع صقر بريبة أم دولة الشيء كسر قطيبة وحي إلتها مرن كان قصة عناي مرن دولة دي مهن عالم كورنا وضع كفاري بل بابور تاد أركتين يا لوسد يا لبابيني يا nimanka talada dalka ayaa oo wada fashilmo wada shabaabka ameelay shala shabaab uga bixin aan garanaynin bal talada dalka ay hayaan caawe hadduu san ciidan noolayn mid kuliyada jaalisiyaad lagu laga dhigay mid banaanka inta loo taga laga baabi'iyo laga dhigay gunooyinkoodii la cunta anshuurtii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd boobka lagu soo gaday caawada waa la wada ooyaya mid walba waa ooyaya lacagtayda Allah isiiyo lacag midba mid buu eersanaya xaaraantu markay ku soo gasho xaaraantu markay ku soo gasho wallahi baan ku dhartay si easy bay kaaga tagaysaa ilaahay baan ummadda iskale rabbiga arrahmaanka baa iskale toobad keena inta ilaahayna lama siri karo qaaluqu rahmaanka maalikul quduuska lama siri karo haye intaad adigu tashanaysid ilaahay indhuu kaa eegaya waa kuu jeedaa maskiinka ooyaya iyo adiga bardoodinayana awoodda ilaahay waa loo simaya war calanka iyo ciidda sidaa laga daay war dawladnimadu saan ma ahan war waa wax wada ogol oo aan wada leenahay ma ilaaliyad markaad itiri oo caawa gacmaha aan laabtay ma dawladii ma ay ku soo aroortay marka atooshiraha la xiro iyo hubabka laga keena beela caalamka inta tuuganimo lagu keenay hadhowna hal la inkiro ma taasaa dawladnimadu caawa dawladnimadii caawa dalkan iyo dadkan calankii iyo ciiddii caaway xageena loo wada xagee ku soconaa hubkan al-shabaab loo geynayo nimankan filada fadhiya iyo al-shabaab maxaa ka dhaxeeya nimankan madaxan idin nayle oo daaha dabadooda ku wada jira iyo shabaab waxa ka dhaxeeya maxay tahay ilaa hubkan waxa lagu soo iibiyaa dawladda soo iibisay haye odaga Jabuuti caawa qandhahaysa maalintii hubka la qabta qaracankii uu qaracmay haye nin walbana baaba ayagu anaga raadinaya aawiyaan aaminaa marka dalka yaa ku aaminaa ma wiila waxaan ugu toosnaa hilib ceeriin oo cunaan xabsi u geynaa ma gabadha waa la sawirayaa sawirka mobilka lagu sawiraan anagu aan ku dhowranaa ma waxaan ku dhowranaa dhiiqada magaalada Muqdisho inta taal iyo hooyooyinka ooyaya miyaan talada dalka dhan aan ku dhowranaa war caawa dawladnimadu waa wax la wada leeyahay caaway waaran baa la ii jiraa aniga waaran baa ii go'an
محاكم مطيستة والعيد عنك هاي قف والبقى وداني أو دلك إبعلاني إله محمد قالقان كل نارته مد بستورد لو نفط إيه مد سمشوتر مد حاس لو جتوك تلا جوضا نيجي لها حتى لفت الجريم باللو السعودي إله واك إيه الصرية هاي إلا بدلان يسعيد دري باللو السعودي ما دلك الله بابي إنا maxaa dalkan loo baabi'inaya dalkan maxaa loo baabi'inaya annaga dhan maxaa hamlesna lagu wada dhigaya war soo qarankeena ma moodin inuu berri intuu dad fashilmay oon dowladnimada haykalkeeda garanayso ma noqonayna berri ilaan dowladaha nala dariska oo dhan already waraaqa UN-ka u wada gudbiyeen hay already warqaday wada gudbiyeen waxaan waa la wada diray baadida ninka kula daydayaaya daalna kaa badan baan jeclayn daa'in abid inaad heshid هاي وانا اللي يدين دعوينا يا هوبكي اب ايغا كسو قادتين دولadaha dariska ad ka doorateen baa la tusaya caalamkii in atiin dad qaa'inuun wadan ah atiin hay maxaa noqon marka ma fashilanay ma ana fashilmin hadana maamula idin yiriyoodna maamuli karin iska taga hadaa idin raanoodna iska tagi karin madax jabiska haduu noo dheeryahay war xagee dalkan loo wada ma 91kii la sheegayaan ku noqonayna anagoo dhan war ma 91